gabdhihiina ay farahi ka bateen dee waad ka tegaysaa marka taas waa midaas gabdhihii waxaa la rabaa marka inay ku doortaan rasuulka xadiidkii rasuulka sallallahu alayhi wasallam uu yiri oo ahaa fa in jaakum man tardawna khuluqa fazawwijuhu hadii ninka waxa laga fiirinaa nin balwad leh gabar inay guursato waa mamnuuc because qofka balwad lihi waa qof la leeyahay naftiisu kabay waa la leeyahaba wax kala iska leh see u guursanaysaa marka macnaha waxaan la yaabaa oo waxyaabaha iga yaabiya waxaa ka mid ah gabar masayraysa laakiin nin buu loo leeyahay war haddaad ka masayr lahayd nin ooda naag la guursanayn kan balwadale iska ilaali balkoos kan balwadale wuxuu qabaa naag kaloo qaba waa nin saas oo kala marka nin balwadale naag inay guursato ama sigaar ha ahaado ama qaad ha ahaado ama balwad kale ha ahaato qof wax obsess ku ihi waa qof psychologically sick ah iska ilaali marka waxaana ka soo horjeeda xadiidka rasuulka sallallahu alayhi wasallam oo dhahayay khuluqiisa macnaha oo balwad khuluq ma laha khuluq waa shay in laga fogaado u baahan weey marka halka ugu horeeya taas weey hadii marka arinta la sameeyo waxa imaanaysa runtii la soo sheego waxa imaanaysa wiilkii inuu ka fakaro long term plan oo ah reerkan soo ku manage gareelaha qofkan say tahay midda kale waxaa jira waxyaabo hadhow keena in la isku dhaco waxa ugu badan ee dumarka iyo ragga isku diraahina waa masayr waxaad arkaysaa gabdhihii inay mashquul ku yihiin ninkii telefoonkiisa inay fiiriyaan heblo ma la hadashay xaguu aaday naag kale war u soo tabiso waxyaabo noocaasa in la xakameeyo ninkii ay celiyaan waxaa keenaysaa khalad ninka raggaahi marka hore uu naagta guursanay uu sameeyay oo muxuu yahay khaladkaasi inuu been u sheego in mesela maanta markii gabadhii ay ninkii uu shukansanayo ay ku tiraahdo haye macaani aniga maxaad ilaadaa naag ma ila guursanaysa ani waan nacbahay in naag la ila guursano uu yiraahdo adiga may weliga ma kula guursanaa naag kale ma u jeedaba ma adaan wax kula sima waxaas uu qarxi wuxuu marka qofku markuu saas leeyahay wuxuu ka hor imaanayaa sidii Allah subhanahu wa ta'ala u abuuray oo ahayd qofkan inuu ku jiro damac ka badan intaas caalamka meelanan soo marin malaha ama ha ahaato western world ama ha ahaato mid islamic world waxaan rabaa inaan la wadaago shacabka Soomaaliyeed markaan Spain joogay jaamacadda ayaa waxa macallin la yiraahdo Cantala Piedras oo professor u ahaa ayaa wuxuu ibar xaaskiisa marka wuxuu yiri tani waa xaaskaygii laba gabdhood oo kala la socotaan wuxuu yiri kuwaanina waa saaxiibadayda aan la jiifan karo macnaheedu taas wuxuu yahay ayagoo dastuurkoodii iyo waxay samaysteen ku qortay inuu ninku hal guursa karo oo iska bada guursa karin maadaama aan ninkii ilaahay uu sameeyo la bedeli karin waxa danta ku qasabtay gabadhii inay ogolaato inuu ku banaanka ka keensado oo bila xuquuq banaanka ka keensado ma fahmino marka arintaas iyada ahi waxay ka hor imaanaysaa ninkii ragga ahaa inuu marka hore gabadh been u sheego gabadha waa inuu ku yiraahdo aniga islaamana Allah subhanahu wa ta'ala ay abuuray wuxuu Allah igu abuuray wax ka soo horjeedana balankaaga ma qaadi karo Allah wuxuu igu abuuray inaan islaama in aan shahwadaydu ay ka badan tahay hal qof dumara haddaan marka ku ballan qaado maanta waxaan ku ballan qaaday wax ka soo horjeeda abuuritaanka Allah abuuray inuu saas u sheego haddii arintaas dhacdo gabdhaha qaar laga yaabaa inay ku tagaan laakiin markay kan ka tagto saddexaad waa ku aqbalaysaa because waxa arkaysaa wixii wax jiro in yihiin run yihiin ninkaasina wuxuu helayaa haday 2 iyo 3 dhaafaan wuxuu helayaa mid diyaar u ah oo saas ku qaadata markuu taas helo gabadhaas inay kala tagaan ama reerkaas u burburo aad u agtaa because meesha waxa laga saaray wax alla wixii been ahaa oo sal ku lahaa iyo fulanimo way masayri kartaa gabadhii hadduu ninkaas naagta wuxuu masayri kartaa laakiin qaab loo xaliyaa jira inaad qofkii iska barbarisid inaad u sheegtid waaqiciga inaad runta u sheegtid inaad xataa maslaxatid waa zawjadaadii waa saaxiibta waa jacaylkaagi taas waa mid waxaan rabaa gabdhaha Soomaaliyeed mid kale inaan ka dhaadhiciyo oo arintaas ku saabsan aad tiri oo ah gabadhu inay aaminsan tahay ninka ragga ah hadii uu la guursado inuusan jeclayn oo ay aaminsan gabadhii hadaadba ninka naag kala damacday de aniga ma jeclin oo ay leedahay aniga maxaad iga weysay ma waxbaad iga weysay wax saas ay ku andacoodaan arintaasi waa arin qalada waana arin ka soo horjeeda qaacidada islaamka ka soo horjeeda qaacidada islaamka ninkan Allah subhanahu wa ta'ala wuxuu abuuray inuu sidaas ahaado inuu asagoo ku jecel wax kale uu damco rasuulka sallallahu alayhi wasallam sameeyay waxa sameeyeen khulafaa raashidiin asxaabtii ma sameeyeen caalamka oo dhan maanta laga sameeyaa gaalada sameeyaan adigoo marka islaama inaad tiraahdid hadii aniga aad iga tagto ama naag kale aad damcdo waa ima jeclid waa arin khalad Sufyaan waxay yiraahdaan gabdhaha Soomaaliyeed ragga Soomaaliyeed baa afartaani waxaan macnaha ayagoo macnaha ku yasay ku liiday nin Soomaaliyeed amaano kale nin Soomaaliyeed waxa la dhaqmo maaha ajaanibtan bideena ajaanibtuna xaqiiqa ahaan nooca sheegaysa ay yihiin saaxiibo boqolaal sameystaan ayagoo halna macnaha soo bandhiganay absolutely aniga waxaan ku soo nala westernka muddo waqti ka badan muddo aad u dheer ilaa intaan yaraa xaggan ku guursaday ku soo ilmo dhalay intaan kula soo ekaaday waxaan tusaale u rabaa inaan u siiyo shacabka Soomaaliyeed marka uu nin western xilka soo koro madaxweynuhu rabaa haado
France haddaad tagtid Sarkozy François haddaad tagtid English Tony Blair kulligood meesha John Major Maraykan haddaad tagtid kulligood mar alla markay xilka soo fuulaan 7 naagood 9 naagood daba socotay la tumi jireen waxa ugu darnaa Donald Trump Maraykanka waxa ku horeeyay Barack Obama waxa ku horeeyay Bill Clinton oo taariikhda la wada ogyahay kulligood marka gabadha Soomaaliga ee ka dhaadhacsantaa waxaani waa phenomena oo ku saabsan Soomaalida walaashay islaamka aad u qaldan tahay caalamkan waxa ka moogid ayagu waxay isku ogolaadaan gabadhii ayadoo markuu qabo mid waxay og tahay kuwa kale bila xuquuq inay ahaadaan waa arintii diinteenu ay xalaalaysay fiiri waxa la rabaa inaad fahamto islaamku الله سبحانه وتعالى وحو أجيها إنك إنه ساس سمينيو because ساس سمي وحو حلالي مركا سشرعيها لوجو حلالي إن قبضة أو لا تمانيو أما أو لا جيفانيو أي سنغنين ميدو إسكيل لو بحقوق دي كتجا حقوق يلطو سيدا دراديد وحال ربا إن قبلها صوماليد أي فهمان أما قاتن قاعدة ده أرنتان إن يتها أرن هدي كوري مادان كيني سدباتو إنكلاتو وحكلون ربا إن لو ذا قبلها صوماليد دين عم سيرك مركا لجاه ليو gabadha Soomaaliyeed marka intay maseerto ay ninkii ku qasabtay leerisay waxay ku guuleysatay inay ninkii kaligiis ashato oo ay ka dhaadhiciso ay u diido ama cabsiiso in uu ayada kaliya ku ekaado markay saas tamayso gabadha Soomaaliyeed ahay 4 gabdhood oo kale Soomaaliya ay banaanka ku qabatay waxay sabab u noqon kartaa gabdhahaas mid kamid inay zina ku dhacdo waxay sabab u noqotaa gabdhahaas mid kamid inay guur la'aan noqoto oo ay ku daqowdo ayadoo coon waxay sabab u noqon kartaa gabdhahaas mid kamid inay damacdo waxyaabo aqligayga iyo hadda inta aanan ka dhigi karin oo dhaqamada gaalada waxay sabab u noqonaysaa koritaankii bulshadii Soomaaliyeed iyo inaan badanno inay ka hortimaado oo xaqiiqa marka waxa la rabaa gabadha islaamka ahi in ay ku fakarto marka ugu horeysa intaysan iyadu nafteeda ka fakarin iyo shahwadeeda maxaa ka imaan kara waxaan wadankeeda inay noqoto islaam diinta islaamka iyo siyaasadda islaamka inay ka fakarto wadanimada inay ka fakarto qaacidooyinkaas oo dhan meesha ugu jiraan ee ma aha inay ka fakarto aniga heblo maxaa iidana because adiga heblo waxa ku daniyay waxa laga yaabaa in aysan ahayn xaqiiqda rasmiga adoo haddaad ii ogolaato su'aalaha oo ku dib dhigaa waxa jirta mid kale oo raba gabdhaha Soomaaliyeed inay la wadaago gabadha marka la qabo ay tahay gabdha kale la qabo waxay helaan waqti fara badan oo saamaxa guurka furitaanku inuu yaraado maxay tahay gabadha midalan marka gabadhu marka lagu guursado 20 sano 19 sano waxa dhacdo gabadhaasi ama xaqiiqa inay ku soo korto nolol ay hooyadeeda abeed la joogto guri joog aheed ardayad aheed iskuul aadaysay noloshaas ay ku jirtay maanta marka waa laga soo saaray noloshii nina loo keenay ninay guursatay waxa lagu qasbayaa qofkaasi in ay noloshii 24 saac u taagnaato adeegii ninka reerkii nadaafadii wixii oo dhan inay isqurxiso war hadii gabadhii la yiri 3 maalmood ama 2 maalmood naso noloshaadii hore oo doobnimada soo booqo hooyo la soo jiifo asxaabtaadii u tag hadaad iskuul leeyahay iskuulkaaga akhriso hadaad ganacsi ku jirto ganacsigaaga samayso jaanis fiican haysataa oo ay ku neefsato guurkiina waxa laga yaabaa inuu sidaa ku badbaado arintaas waa arin muhiim ah shacab waxaan rabaa gabdhaha inaan la wadaago ما شاء الله meeshan waxa uga faa'iideysanaya gabdhaha Soomaaliyeed inta badan hadda qodobadaas aan sheegtay dhibaatooyinkaas uga yimaada waxa sii jira qodob aad uga sii daran ee ah gabadhan markuu ninkeeda u soo bandhigay inuu gabar kale guursado waxay leedahay ayada ama aniga ninka waxa qasab noqonaya gabar hore ama qodbasiro ugu qabay amaba uu caadi isku qabay marka iskhilaafaan kadib inuu labadoodi mid furo meesha ay ilmo ku dayacmaan taana waa qodobka ugu daran ee hadda dumarku ay u adeegsadaan yiraahdaan silac ku noolsatan kursitaa dhaanta ee qaacida qaldan ah ee ilmo lagu dayacay ilmuhuna aysan hadhoodi laga yaabo ninka inuu midda uu qabo ilmaheeda uu kaarsiiyo midaan ay kala tageen uu wax ka marka taana bal ka baraaruj arintaas iyadaahi runtii waxay ku salaysan tahay qaacidadii ahayd markii hore inaan been la sheegin qodbasiro waa xaraan qodbasiro waa qalad qodbasiro waa qasaaro waa qurun ninka gabadha Soomaalidan waxaan kula talinayaa inaysan qodbasiro ogolaanin hadii nin ku shukaansado oo aad aqbasho oo xaas leeyahay banaanka keenay sida islaamku uu qabo wehelkay u tagde hadduu saas kugu rabi waayo hadda walaal adiga baxris galiyo waxa iimaanaysa barito wala midii horu kaaga horeeyay haday ku tiraado hal la furo in lagu furo marka haba ogolaanba ko beentiya ka bita haddii marka ninkaani marka ugu horeysa uusan been sheegin ee gabadha